waxaa maanta magaalada Kismaayo soo gaaray gudoomiyaha xisbiga nabadda ahna gudoomiye ku-xigeenka madasha xisbiyada qaran Professor Maxamed Cabdi Maxamed Gandi waxaa professorka garoonka Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin isugu jira wasiiro ka tirsan xukuumadda Jubbaland xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Jubbaland mas'uuliyiin iyo xubno ka socda xisbiga nabadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka waxaa soo dhaweyn kadib professorka loo gudbiyay hoolka nasashada ee garoonka Kismaayo halkaas oo ay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii soo dhaweeyay saxaafadda kula hadleen mudane Cabdi Xiis Udan oo ka mid ah mas'uuliyiinta madasha xisbiyada qaran oo professorka ku wariyay safarkiisa ayaa ugu horeyn ka warbixiyay ujeedka safarka gudoomiyaha waxaanu weydiinay waxa ka jira hadallo la isla dhexmarayay oo sheegay in gudoomiye Gandi uu u tartami doono xilka madaxtinimo ee dalka safarkana wuxuu daaran yahay safar shaqo waaye professorka gudoomiye ku-xigeenka madasha xisbiyada qaran ahna gudoomiyaha xisbiga nabadda anaguna aan ka mid ahay mas'uuliyiinta xisbiga waxaan meeshan u nimid inaanu dadkii bulshadii halkan ku nooleed Kismaayo xubnihii xisbiga inaanu la shiro inaanu weydiino baahidooda iyo waxa ay qabaan inaanu la kala tashano isbedelka Soomaaliya ku imanaya in lagala tashado qaabka ugu wanaagsan ee u arkaan shacabkanaga iyo dadkanaga iyo xubnahanagu qaabka u arkaan in looga bixi karo khilaafaadkan hadda jira iyo qaabka u arkaan in dalka Soomaaliya loo samata bixin karo waxa ugu muhiimsan kaas wada tashigu ku saabsanaa hawlo shaqo baan u nimid horta marka koowaad professorku waa dadka farakutiriska Soomaalida dadka la dhigi karo ugu aqoon badan yihiin laba PhD buu haystaa wuxuu haystaa shahaadada PhD ka sareysa HRD uu haystaa Soomaaliya muddo dheer buu soo shaqeynay ilaa shirkii Carta uu ku soo dhex jiray dadkii dib u soo yagleelay hormuudka uu ahaa bulshada Soomaaliyeed dawladnimada ay hadda haystaan laba jeer buu wasiir noqday xildhibaan waaye haddana waa mas'uul xisbi waaye marka waxaan isleeyahay waa qofka ugu mudnaan lahaaba haday noqoto in arinta iyada madaxweyne la noqdo oo ummadda Soomaaliyeed lahayo qofkii hagi lahaa waay laakiin waxaan isleeyahay hadda waa too early waqtigan xaadirka waa aad lama ogeeyay hadda xilliga doorasho dhici qaabka u dhici doonto waxa soo dhan lama oga wasiirka deegaanka iyo dalxiiska Jubbaland mudane Ciidiid Salmaan Xaashi ayaa ka hadlay imaatinka gudoomiyaha kuna soo dhaweeyay magaalada Kismaayo gudoomiyaha xisbiga nabadda ahna gudoomiye ku-xigeenka xisbiyada madasha qaran Professor Maxamed Cabdi Gandi waxa sharaf noo ah golaha xukuumadda xubnaha ka jooga xubnaha baarlamaanka xubnaha bulshada rayidka xisbiga xubnihiisa jooga ee hadda halkan ku sugan bulshada reer Kismaayo waxa sharaf noo asaaka inaan kugu soo dhaweyno magaalada Kismaayo kadib muddo dheer oo dalku kala xidhnaa oo COVID-19 iyo hawlo jireen inaad maanta ku soo noqoto ku soo guriga noqoto magaaladii caasimadii ku meel gaarka ahayd ee Jubbaland sharaf bay noo tahay waana kugu soo dhaweynaynaa waxaan ku leenahay Professor Gandi ku soo dhawow Kismaayo bulshadaadii dadkaagii oo ku xiisay ugu dambeyn professorka oo la hadlay Jubbaland TV ayaa xukuumadda federaalka dalka ku eedeeyay in dalka ay gelisay qalalaase siyaasadeed isla markaana talo u jeediyay madaxda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka ee uu shirka uga socdo magaalada Muqdisho waxa waaye inta laga soo bilaabo Carta ilaa ay hadeertan dawlad kastoo timid dalkan waxbay kordhinaysaa waxbay ku dareysay dawladdan waxay kordhisayna male waxay abuurtay isku dhac fara badan isku horimaad fara badan dad fara badan oo Soomaaliyeed baa marginalization lagu wadaa dhibaato lagu wadaa soo ma garan anaka waan iska aamusnayn laakiin waxa waaye waxaan wax si socon doona ma haddii la joojin waayo dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed lagu wadana waxa waaye waxa laga yaabaa in aan ku dhacno dagaal sokeeyo oo dambe waan anaga aan tabar wahayn sharci darrada wali waa lagu sii socdaa soo ma garan hadda waxa waaye waa la wada fadhiyaa anaga waxaan leenahay waa in dastuurka laga dambeeyo maamul goboleedka waa in ka dambeeyaan dawladda dhaxana waa in ka dambeeyso danta shakhsiyaadka hogaaminaya dawladda waxa ka weyn danta qaranka Soomaaliyeed mana ogolaanayna anaga in dan shakhsiyaad oo gaar ah loo rogo qaranka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed maaragtay loo rogo Najma Ismaaciil Farbaahinta Jubbaland Kismaayo.